subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. holac Somali TV subscribe please. assalaamu calaykum waa idin salaamo dhammaantiin 15 sano markaa jiray hooyaday macaan waxay iga sheekaysay aabbahay qisadiisa aabbahay nin aad u fiican buu ahaa hooyaday markuu guursanayay laakiin gadaal uu ka xumaaday maandhaco dhala laakiin saasay tahay marmar wejigu bedeshaas u fiican jirjiroola camal uu noqonaya waa idin dilaa dhammaantiin aniga marka aabbahay waa ka shekin jiray maalimaha ka mid ah hooyaday qudaar iska soo iibsanaysa wadada marayso ayaa nina soo dabagalay way ka shakisay ninkan muxuu ii daba socdaa maandhoocan timaha jaalaha leh haddana garan wasaq u xirnaa kaaga daran meesha ugu layaabka badan waxay tahay ninkan wuu iga daba hari waayey anigana saa u socdo iska indhatiray markii dambe uu igu soo orday uuba dharbaaxaba anigana yaab war maxaa kaa qaldan maandhaco dhale war ma aqoon baa ii leedahay waxyo timaha jaalaha leh yaa mise hooyada igu qaldaysa waryahay markaasaa cararay anigoo cabsanaya guriga isku soo xiray habeenkaas marka isla habeenkaas duqeyga u sheegay macnaha ninkeyga ninka suu eka ayuu igu yiri markaas waxaan ku yiri ninka timo jaalo uu lahaa midda kalena garan xun oo wasaq badan buu xirnaa ninka ma fahanti ninkaas hadda iga qaban weysana aday ku taala maandhaco kale jirin bis markaasuu aabbahay soo xasuustay inuu yahay mid ka mid ah asxaabtiisa okay anaa shaqo ka qabanaya isla markaa ninkeyga nin geesi uu ahaa bannaankuu ku sugayay saacado badanaa dhaaftay kadib suu u fadhiyey aday abbaara 9 saac bar meelahaas markay ahayd ninkii waa wakanaabo doqonka meeshuu soo marmara maandhaco timaha jaalaha leh oo garanka wasaqda xiran waa ku sub orkaale waryaa eyga ku dhala cuna waryaa maxaaskeygaa lagaa kari laaya adiga sooma bis seefaan la soo bax seeftaana wejiga kaaga jarjaraya war aqoon ma noo leedaa waryaa waxaana waryaahe ma cunugaa dhashaa noo malaysa anaka isla markaas seeftii aan ku jarjaro washdhee ninkii dhan calaamada u yeelay wareyga daa war waxaan niyo timaa dhuxusha leh muxuu ahaa war doqon maa tahay niyo maandhacyo bis waryaa wax muxuu sheegaa dambe meesha haddaa kugu arko jirkaada inta qurub u jiro ma aragta iyada u daadinaya ama aan ku daadinayaa webiga ma fahante dambe meeshan yaan kugu arkin soco maandhacyo isla markaa waa ordo way noo taalaa balan waxaa igu inaan kaa aarsado saana ii gashay sooma walaalkii iga weynaan kugu soo wacaa aday muddo dhowr sano kadib anigaa lay dhalay waa aabbahina aada ugu farxay aniga marka cabdiyaa la yidhaahdaa waa wiilka hadda qisada inkauga waramayay markaa la dhalay kadib hooyaday qaracan waxay islahayd wiilka amuu ninka kaa dilaa isla markaa qaanadii aan fura qaanada markaa furo bahasho aan ku arko waayo maandhaca iska ma ogtahay 3 sano markaan gaaray ahayd yara weynaaday bahashaana marka la dhici gaaray ilaa amarkiis aabbahay qolka soo galay markaasuu or maandhaco kale jira maxaa samaynaysaa waryaa ka soo deg meesha dhaqso warkeen bahasha dambe adoo bahashan qaadaysa haddaa ku arko waa ku dilaa ma fahante hayaabo iska cabsada ma fahanteen bis markii dambe wuxuu igu yiri wiilkeygaan jeclaa tahay hadalkeyga waa inaa maqashaa midda kale namari ninacaan kusoo iibina isla markaa ninacoo isoo gaday aabbahayna waa iska jeclaa aday habeenada ka mid a waxaa uu maqla oo aabbahay iyo eedadii isku qaylinaya markaasna waa yaraa waxba ma kala aqoonin aday 14 sano markaan soo gaaray qisadayaan ka sheekeynaynaa hooyaday ayaa weydiiyey hooyaday marka waxay igu jawaabtay ilaan eedaday uura loo yeelay uurkana waxa u yeelay niman kale ahaayeen aabahayna qaracan hadee maadaama ay walaashiis tahay naa maxaa kaa qaldan ma waalan tahay ilaan boorsadii uu aabahay ii diidi jiray seeftiyaa ku jirta oo ninka hadda kahor lagu qalqalaya markaasuu raba caloosha inuu ka gelo cunugan xunka wecelka awoodid waa kaa soo tuuraya hooyadayaa ka celisay war ninkeyga maxaa kaa qaldan walaashaa waa caadi iska dhig saa u barbariyi jiray ugu dambeyntii inuu diluu rabay aabahayna waa macangag kala jiran aniga arintaas marka la iga sheekeeyey aada u yaabay inkastoo aabahay yahay nin wanaagsan hadda aniga 16 sana jira laakiin aabahay waa nin oo
familkiisa jecel, reerkiisa dhammaan, anigana zaaid uu ii jecel yahay. Aniga maalintaa wixii ka dambeeyay bahashaas meesheeda isaga celiyay. Maalmaha ka mid ah waa uu furo bahashi dhiigiiba leh. Midda kale asxaabtayda dhammaan Holac Somali TV dali dibad meel walba iga daawanaysaan waa idin salaamo aadaan idin jeclahay. Channelkayga Hal Abuur Soomaali cilada yar uu qabaa laakiin insha Allah muuqaalo waan kusoo gudbin rabaa hadduu Ilaahay yiraahdo ciladaas markay iga baxdo. Holac Somali TV na waxaa isku daydaan 50,000 inay gaarsiisaan. Horta bishan 30,000 inay gaarsiisaan aan rabaa. Like badan saara, subscribe na dhaa mahadsanid. maanta waxaan ka hadlaynaa Squid Game. Fadlan muuqaalkan like fara badan noo saara mahadsan. waa waraa sixiroo lama tahay acuudu billah kuwaana si u socdaan haddaa maqasho waa ka cabsanaysaa. Gameka ha bilowdo. waraa sixiroo lama tahay mandho caataa cuna acuudu billah markaasaa way soo wada baxeen dhammaantood. hadda isku diyaarinaynaa gameka. war iga fog mandhoocio yariso maxaa igu soo boodaysaa. waree meesha fadhiyi ma yaalo waa lii xabaday waray sii daa cunug yaraa wuu dhac xabaddaa lagu dhuftay dhimo tuugaataa cuna kana sheedaan u ahaa mar walba uu baaba'ay. ware nakeen indhaha mandho cadii fooq indhahan ka siibay. warwaarayna hadda waxay naga qaadi karaan male soo toosa dhammaantiin xabadaan ku bilowne xabadii soo gameen kuwan ay kana waree meesha waxaa ka dhacay dagaal aan warkeen dhabarka shub. maxay noo moodeen kana caaro noqda. war hana dilina mindida iska qabta. saddexdooda mindiya indhaha ka geliyey. war qabsa adna mindidaas. dhammaantood waan ka raynay mindida shub. aqoonay ma lihid adna mindida iska qabo. kulli waa baabi'inay gamekina ana ka rayna. asxaabay muuqaalka haddaa ka hesha like saara. muuqaalo noocan waa idin soo badin doonaa marka waana ku mahadsantiin daawashadiina. sheekadan waxay ku dhacday saaxiibkii 12 sano ka hor guri cusub ay iibsadeen. gurigan alaab walba laga dhex heli jiray. deriska xataa way jeclaadeen gurigan. haddaba isbuuc walba waxay samaystaan casuumad. deriska dhanna waa loo wacaa meesha lagu cunteeyaa. waxay meesha ku cunaan digaag weyn. habeenka jimcadana sidoo kale casho sharafay samaystaan. duqa gurigan waxaa la yiraahdaa Cali. ninkaana ujeedaan. haddaba wiilka yaraa dhalay wuxuu jeclaa badanaa wiilkan kale inuu la ciyaaro marka derisa ahayn. habeenkii xataa meelahaas uu soo seexan jiray. hal maalin marka anigoo xaafadda jooga oo shaqada ka imaaday. anigan waxaa la yiraahdaa Cali. bis waxaaba daaqada ka arkabo 2 qof oo lamaana ah oo dhinaca taagan daaqada dhinacaas. ninkaana gabadha si xun u dilaa. namandho cadii ma beelay dhiibatay qabadkaada cune aqoon ma ilaad. aniga yab gabadhana gacmuhu ka xirxiray. way soo fiirinaysa marka aniga waxaa isiray gabadhan talo booliiska ma u wacdaa. cabaar kadib booliisa waa imaadaba. haddaba booliiska arrintii markay baareen waxayba arkeenbo labadan qofay soo qabteen gabadhina meeshii ku dileen ileen. bis waxaaba laga helaba gudaha kashawiitadaasi mindi iyo farinjeelkan waxaa ugu jira xubno bini'aadan iyo hilib bini'aadan. bini'aadanka hilibkoodiiba cuni jira madaxaana way karsanayeenbo. ilaa amarkiis waxaasoo dad waxaa ka badbaaday gabadhan. haddaba sidoo kale gabadha deriska ahayd qof fiican iska dhigaysa ilaan dilaa caadiyaba ahaydbo. asxaabi like saar.